aniga walaalkay na dhex martay intaan imaaraadka joognay oo aan meesha ku soo qoray haddaan idin bilaabaya insha Allah taala walaalkay horta marka ugu horeysa waanu hambaliyeenayaa walaalkay waa Cabdihani xaashi Cabdullaahi aad baan ugu hambaliyeenayaa hambaliyaan leeyahay walaal isku soo dhawow waxa way noo imow markiska sunna noogu imow runtiina mar dhow baan wada hadlaynay wax yar ka hor waan wada hadlaynay waana isla qaadanay inuu maarta haba yaraatee halkan imaan doono oo insha Allah taala aan soo wada xiriir doono xiriir dhow aan samaysan doono marka walaalayaal waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo aniga walaalkay sheeko nagu dhex martay magaalada Dubai anagoo ka nimi oo u soconna meesha la yiraahdo Sharjah marka Sharjah markaan u soconay habeenka waxa dhigsanaa show ay leedahay gabadha la yiraahdo Rahma Rose gabadha la yiraahdo show ay leedahay habeenka dhigsanaa oo Crown Hotel ya Carlton oo Sharjah ku yaala waa taqaanaa intii badan hotelkaas aan u soconay marka aniga usaga kaliya waxa ku darbayo arintaas waxa weeye aniga iyo usaga kaliya baan ahayn gaarigaygaan wadnay waa soo baxnay Dubai baanu ka nimi ana soo qaaday markaanu buxaarada soo galnay marka maarta waad garanaysaa Sharjah meesha baartay oo lagu dalxiiso markaanu halka galay ayaanu waxaanu galay meesha quruxda badan ee xadiiqaadka iyo maartay alaabta maartay badda soo soconaysa iyo waxyaabahaas halkaasaan xoogaa yar galay talow waxaan rabnay inaan wax ka cunno ama wax ka cababno marka xadiiqada waad aragteen masaajid baa xagga kaga yaala masaajid cajiib oo qurux badan oo yar baa dhinaca xadiiqada kaga yaala marka saaxiibkii Cabdihani sheekadana dhex martay waxa ahayd masaajidkii wuxuu yiri marka igu sawir saaxiibo masaajidkan igu sawir biyo waa labadii kaliya markaas waxaan ku yiri waniyo masaajidkan ma inaka deysaniyo masaajid iyo sawir iyo isku sawiro oo inagu hawlo kale ku jira arma laga fiicay siir wallahi waa jeclaa inuu masaajidka waan jeclahay ee igu sawir waan jeclahay masaajidka walaalow igu sawir marka waxa igu soo dhacday kelmad marka waxaan ku yiri walaalow waniyo goormeen horta hawshan ka baxeynaa goormeen masaajidka galeen wala dhalinyareen nahay lama qaban de waqti baynu haysanaa jaanis baynu haysanaa ilaahay subhanahu wa ta'ala marka goormeynu saaxib ma iska galaaba ma kaga dhamayna markaas yiri waa kaga dhamayna wallahi waa jeclahay oo waliba markaasi si niyad ah buu yiri arkaas ilaahay waa ogyahay marka maanta waxaan qirayaa walaalayaal wixii aniga asagaba aan niyada ku haynay in ilaahay subhanahu wa ta'ala riyadayada noo rumeeyay walaalkeena aan hadda maarata ku bishaaraysto isagoo la leeyahay gabi ahaanba waa ku dhawaaqay meel official uu kaga dhawaaqay inuu hawshaas iyada ah uu maarata iska laabay marka waa sheeko dhacday isaguna wuu ogyahay ana waan ogahay marka ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubtayda ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala oo inaanu de wax jecel wax nagu jirin anigana runtii markaan idin sheego waxyaabo fara badan marar badan ay u soo dhacday hatta waa mar waaniga xanuunsaday oo muddo ka sheekeeyay oo maartay qofku hatta markaad xanuunsato isdareemayso markaad ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadka ku siiyo caafimaadka u badareed waa qooqaysa ilaa insaan baa tahay muqt marka waa qooqaysa hawshaadii baa iska galaysa waxaagii baa iska qabsanaysa in maartay wax ku laakiin wax yar hadii lagu qabto oo wax yar imtixaan yar uu ku qabto masiibo yar qayla ku dhufaysa ma waa sidaas idan yeela ma garanaysa ma inaan waliba hadda xanuunada qaar ay kugu dhacaan waxa isleeyahay tolo waaba dhimanaysa maanta kugu dambaysa hadda mustaqbal xumo ku dhimatana waa ku dhamaat marka walaalayaal runtii waxaan idin xaqiijinayaa fanaaniintu dad qalbi xun maaha waa dad aad u qalbi wanaagsan badankood waa dad aad u qalbi wanaagsan runtiina haddii la wacdiyo oo loo sheego khayrka oo la yiraahdo war walaalo waxaan ka soo noqo ilaahay u soo noqo subhanahu wa ta'ala walaalkay Cabdixafiid Ismaaciil Cabdixafiid soo dhow walaalkay Cabdixafiid gaashin qaaliye way barigaasna waa wada joognay Dubai oo sheekada isna uu ogaa
دوي بقى مركا وذي جوجني عبد الحفيد بي بي سي دو شغيا هذا ما أعرف فيه وهذا بي بي سي دو تجي وفيه وهذا وريجي سودو ولا الكي حشمد وين باقوها يا إن شاء الله تعالى مركا dad aad u qalbi wanaagsan way walaalayaal marka habeenkaas waxa walaalayaal nagu soo dhacday xafladaas aan u soconay raxmaroos gabadha walaashaya baan soo wada dhaweynay aniga isaguba oo hotelka ay ka rabto halkaas aanu galay meeshaas aanu soo maray sheekadaas baana dhex martay sheekadii markayna dhex martay marka maanta maxamed salaad cali soo dhaw walaalkay aad iyo aad marka sheekadaas markayna dhex martana maanta waxaan dareemay aniga walaalkayba in ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo xooga nimcana siiyay oo khayrna siiyay oo inaan waxaan jecelahay marka insha Allah halka ka sii wadno oo wanaaga iyo khayrka maartay aan sii wadno oo sii daa'imo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa walaalayaal inuu noo sii daa'imo oo maartay kuwa walaalahay oo ku jirana inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka soo saaro oo adduun baa lagu jira xaaladiisii si gabagaba yahay ilaahay khaatumadeena kulligeen walaalayaal khayr ha ku khatimo qof ma jiro waxaan jecel oo inuu ku dhinto jecel waxaan idin sheegayaa idin xaqiijinayaa fanaaniinta inta badan waa sheekaysanaa kuwii ugu waaweynaa dubay bay ugu imaan jireen oo waa sheekaysan jir sheekaana dhex mari jir marka qofku wuxuu jecel yahay inuu rabbigiisa la kulmo isagoo raalli ka ah qofna cadaab ma jecla qofna dhibaato ma jecla laakiin cilada meesha taallaa waxay tahay shaytaan baa naga shaqaysanaya shaytaanku waa masiibo waa cadow wuxuu rabaa inuu jahannamo dadka oo ballan buuna qaaday oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala hortiisa ayuu ballan ku qaaday inuu dadkoo dhan jahannaba intii raacda uu jahannaba ku ururinayo ballankaasuu horey u qaaday ballankiisiina waa uu ka dhabayaa waa wataa meel kastana waa kaaga soo wareegaya marka walaalayaal waxa laga yaabaa bariga hore inaan ciyaaraha daawan jiray inaan u aftirin jiray Cristiano Ronaldo baa maanta ciyaaraya maanta Messi baa halkan ka shidan tahay maanta Dalbayero Roberto Baggio Ronaldo waxaasna aftiray maanta laakiin alxamdulillah rabbil alamin ya إمام ابن قيم بالله شيخ الإسلام ابن تيمي مقرت إمام النبوي يا إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل تذكر سامرت حتى الحمد لله